يا معاصدة يا فجورك يا ذنبك يا فسقك بدنايو بشان ما هي بش إله إلا عاسنا يا كجوك سبونا كجوكسو كقابسو وبشي خيرك ويانا سو قابل بشي عصيانك يا معاصدة لا يمنا يا ما هنا كقابسو أو كجوكسو وبشأ نبينا يري عليه الصلاة والسلام رمضان هديه يمادو الباب الجنة أيا إلهي جل وعلا يفرع الباب النار والله حراب النبي يري مردة الشياطين والله حراب النبي عليه الصلاة والسلام وبال هذين كستو بشر رمضان كمده النبي شاق إنه إلهي إلهي أضوماء النار تكحري في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك لله عتقاء من النار إلهي وحوليه أضوماء النار كحرية بشهر رمضان الله إنك دقا كواس إنك يا الذين يا والدين تينا يا والدين تودي يا أولاد نبى نمان إلهي نار تكو كحرية إنك دقا وابل والنبي قال شيخ عليه الصلاة والسلام نك صوما وحوليه دعاء مستجابة الله أقبله وإنت عدد أين دعين ومرك أفرك أنو ديار قروب إنه ساعد سقفك دعاء است إلهي باهدي سأشيكتا إلهي دعاء سمسو عليه مالين أعرابي ورير بادية أيام مجلس كي نبي قال ننتوس كده احتاجي بو يري يا رسول الله إله حقي سأنوغو يري سمكون نغفوغو مركان باهدي هذا أشيكاني نما نوضا واقناه هذا الكورما نغو قادنا مسوا من نودو أهوس بنو الله هذا الله وآمس النبي عليه الصلاة والسلام لأن إلهي قايل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدي أضومها يقول أنا قايكا ويديان وحدو الشكتاب إلهي إن أنو أضومك أنو دوح أجيب دعوة الداعي إذا دعان كإبرية برية دي سبا إلهي لحلق وإبرية يا برية دي سوان أقبل يا لكن لبشر دبا إلهي كحر دعاء إلا أقبله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون aniga hay ajiibaan baa ilaahay yidhi oo baaqayga ha yeelaan oo wixii wanaaga ee farayna ha la yimaadaan wixii diinteeda islaamku ay ka reebteen ha ka dheeraadaan oo yaan lagu arkin wixii taacada ee macruuf ee shariicadu ay farteen ha fartoomaan oo ha la yimaadaan wixii munkar ee shariicada islaamku ay naga reebteen ha ka reebtoomaan haddii labadaa shardi qofka ducaysanaya laga helo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ballan inoo qaadayaa inuu ilaahay ducadeena uu aqbalayo وقفك صومان بالنبي عليه الصلاة والسلام حلقة أفرك ودوي هي حلقة دعادي سوال الله أقبل حدي وقفك دعايستو لذلك وبالخاصة بشني وقفك استوى مسلم الله دون يباهيدي سئين إلهي تبارك وتعالى وشهد وبال ونبي ونوشيك عليه الصلاة والسلام تبنك الدنبنا إلي كجرتو هبين ليلة القدر هبين ليلة با كجرتا وهبينك سند كردن ee soo socda wixii adduunyada ka dhici lahaa shar iyo khayr arsaaqad iyo maaragtaan iyo amni iyo barwaaqo wixii adduunyada bini aadanka u qadaray sanadka soo socda oo dhan wixii dhici lahaa baa ilaahay malaa'igta ayuu u sheegay uu tusiyaa habeenka leelatul qadriga buu nabigu khayrka ay leedahayna qofkii laga xarimay khayr dhamaantii waa laga xarimay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid nabigu manbarka isagoo fuulaya ayuu saddex jeer nabigu ku celiyo yiri aamiin 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 macnaheedu waa maxay ilaahu ducada naga aqbal bay ka dhigan tahay markaa bay saxaabadu nabiga ku yiraahdeen nabi allah erayada maanta aan ka maqalay hore kaaga ma maqale maxaad ku keentay baa nabiga lagu yiri markaa buu nabigu jibriil calayhi salaam ayaa ii soo banbaxay oo igu yiri niga labadiisii walidoon nolol ku soo gaadhay ama midkood soo gaadhay ee u samafali waaya ee jannada ku gali waaya adeega waalidadiisa u adeegaya ka faa'iideysan waaya jannada dariiqu u maraya u noqoni waayaan ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeye oo naarta allah ku fogeeye aamiin dhabuula marka aamiin baan idhigu yidhi bakhila ba'uda man dhukirta cindahu falam yusalli calayka waxaa kaloo ilaahay naxariistiisa laga dheereeyey naartana lagu fogeeyey ninka agtiisa lagugu hadal qaaday ee kugu sallini waayana كان إلهي نحريستي سهك ديري آمين لبول آمين بان إدبو يدي بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له وفق بشار رمضان أي سوق عدي بشار رمضان كغنيمي سن وايي كفائدي سن وايي بشا كو الله دم بدافا كمن نقوني وايينا
kaana ilaahay naartaa ku fogeeye aamiin dhe buuhi aamiin baan idhi buu rasuulku yidhi ka habaartamayana waa jibriil calayhi assalaam ka ducada aamiin lana waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddii nebi maxamed agtaada lagugu hadal qaado waa inaad ku sallidaa laanna salliga nebigu calayhi salaatu wassalaam waa min acdami alqurubaati ila allahi caza wajal acmaasha ilaahay loogu dhowaado waxyaabaha ugu fadli badan ee addoonku ilaahay ugu dhowaada ayay ka mid tahay man sallaa calaya salaatan waaxida salla allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar keliya igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad ii weydiiya isagana ilaahay 10 jeer buu u naxariistaa buu rasuulku yidhi waa xadiiska culummadu ay yidhaahdeen ma dikriga ilaahay la xusaya ayaa fadli badan mise salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu sallinaya ayaa fadli badan waxay yidhaahdeen culummada qaarkood sida qaadicayaadoo kale wuxuu yidhi sheekhaasi haddii ilaahay la xasuusto laba xadiis buu maaragtaana isku keenay uu isgarab dhigay leanna fadaa'ilka halkaa kala soo bax adiguba faa'iidadu meesha ay ku jirto man qaala subxaana allahi wabixamdihi gurisat lahu nakhlatun fi ljanna subxaana allahi wabixamdihi qofka mar yidhaahda buu nebigu yidhi geed timir ayaa jannada looga beeraa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkii micraajka markuu nebi ibraahim samada 7 uu ku maray waa kii ku soo yidhi ummaddaada salaaniga gaadhsii waxaana u sheegtaa jannadu waa dhul fiican oo dhulbeereed ku fiican dhirta jannada ku taalana waxaa lagu beeranayaa subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar subxaana allah markaad tidhahdaba geed baa jannada lagaaga beerayaa laa ilaaha ila allah markaad tidhahdaba geed baa jannada lagaaga beerayaa laakiin salliga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhegayso man sallaa calaya waaxidan salla allahu calayhi biha 10 buu nebigu yidhi hal mar ninka aniga igu salliya ilaahay naxariis ii weydiiya ilaahay isagana 10 jeer buu u naxariistaa buu rasuulku yidhi idan geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeeroo ilaahay kuu naxariistay waxaa ka fadli badan 10 jeer ilaahay kuu naxariistay lidaalika jibriil calayhi salaam wuxuu yidhi ninka agtaada lagugu hadal qaado ninka agtiisa lagugu hadal qaadee kugu sallini waaya maxaan ugu sallini weynay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka ee dariiqa xaqa aad ku garanaysid ee xaqa ilaahay kuu sheegaysa ee xaqa nebi maxamed kugu leeyahay kuu sheegaysa ee labadaada waalid xaqay kugu leeyihiin kuu sheegaysa jaarku xaqa uu u leeyahay u sheegaysa walaashaa xaqay kugu leedahay diinta kuu sheegaysa xaaskaagu xaqay kugu leedahay diinta kuu sheegaysa agoommuhu xuquuqday kugu leeyihiin diinta kuu sheegaysa diintuu nebi maxamed kuula yimidee waa noloshaadii dhannayd weeyaan saad adduunyada dusheeda xaqa ilaahayna aad u gudan lahayd xuquuqda bini aadanka aad iskaga ilaalin lahayd ayaa nebi maxamed kuula yimid calayhi salaatu wasalaam naftaada dhan ee kugu jirta waxaa kaaga xaqle nebi maxamed naftiisa ayaa kaaga xaqle